habar jecel gaar bay soo raacday warka ay igu soo beeniyeen waa kuwaas way daanuna habar jecelaaba anu history burmadu aad baan maqaana maalinta uu dhaawac doonayaan oo nin soo baroorto abtinimada ku baroorto qof dhaqan lagu sheegayo oo ummadii daba taagan tahay oo leh abtiyaal habareertay waddo ninkan wuxuu iska dhigaa nin taariikhaya isagoo oo ka dhiganaya in uu nin habar jecel yahay oo waliba ma garanaysaa sayidkii iyo daraawiish iyo labadeena seefadoo tasawir noqotay iyo maanta gurigiina baay iyo wixii maadaalka dadka uu sheeganaya ee doonaya inuu sheegtana laba arrimood dhinacna kala hayb maaha kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa Darwiish TV waxaan ahay Cabdikariin Dabagaale waraysigan oo aanu la yeelanay garyaqaan Cabdirashiid Barkadle oo ah siyaasi miisaan ku leh deegaanada SSC barnaamijkan oo qaybo badan leh ayaa ugu horeyn waxaanu ka hadlaynaa abaabulada colaadaha uu hogaaminayo boqor buurmadow oo muddooyinkii ugu dambeeyayba ka waday aflagaadooyin iyo colaado uu ka horinayo dhinaca kale garyaqaan Cabdirashiid Barkadle ayaa fariin u diray guud ahaan bulshada SSC iyo maamulkaba garyaqaanku wuxuu ku baaqay inay ka feejignaadaan colaadaha muddooyinkii ugu dambeeyay boqor buurmadow iyo isimada la socda ay ka horinayeen deegaanada SSC Khaatumo waa ku salaamayaa Dabagaale wariye aad iyo aad adiga TV-gaaga Darwiish TV aad u maatantihiin waana idinka qaaday waana dhawa bismillaahir rahmaanir rahiim horta ma jeclayn inaan jawaabo waxba duulaan ciidan ahayn itraaf lahayn ciidan yaan bidin wax horta ma jeclayn horta anigu inaan jawaaba meediyaha dadka qof walba standard buu leeyahay aan uga jawaabo horta ma jeclayn laakiinse Soomaalidu waxay tiraahdaa nin kula hadlay ka hadalsi oo waa iska nidaamka ay Soomaalidu dhaqanka u leedahay waxyaalahan diidanayna waxa kamid ah ninku markuu de aflagaadooyinna ku isticmaalayo muuqaal ahaanna ay igaga filan tahay nin carabi kuula u xidhatay anigu odhan kar maayo hadallada qaarkood meediyaha laakiinse cid kaluun baa ku dari doonta duntu igu ka xidhan baan maqli jiray marka inta markaan ararta ka dhaafo horta ninkan wuxuu iska dhigaa nin taariikhaya isagoo oo ka dhiganaya in uu nin habar jecel yahay oo waliba ma garanaysaa sayidkii iyo daraawiish maadaalka dadka uu sheeganaya ee doonaya inuu sheegtana laba arrimood dhinacna kala hayb maaha waa suudi shabeelle dhinacna dee taariikhdiisa iyo qabiilkiisaba ma yaqaan suudi shabeelle nin darwiish buu ahaa aniga abtigay buu ahaa hooyaday adeerkeed buu ahaa waan qirayaa inuu isaga iyo aadan madoobaba ay ahaayeen daraawiish ay ahaayeen wax qarsoon taasi maaha waayo dee dawlad bay ahayd dawladduna waxa weeye ilaa hawiye ilaa nin waliba waa ku jira markaa waxaad ka garanaysaa ninkii nasabna wuu la sheeganayaa hayb buu la sheeganayaa qoladiisiina ma yaqaano anaa u sheegaya horta baabroon baa la yidhahdaa amase waa niman faahiye xasan labada magac kuu doono wuu isticmaali karaa mar hadduusan garanaynin markaa inuu hayb iyo nasabba la sheegto oo uu habar jecla la sheegto uusan ahayn cillad baa sababaysa dadku waa dad isku jira inta badan marka Soomaalida imaanshaheeda laga hadlo ninka la yiraahdo Muuse Abubakar Diciido qabiilka gurguraha la yiraahdo bay ku jiraan qofku si kasta oo loo bedelo oo intaasoo gabdhood oo dhulbahantaahi ay reerkoodii u galeen oo aabihii awowgii misana banafkii ka hadhwaa badal loo qasayay geebiyo banafkii ka hadhwaa muuqaalkiisii iyo ciddu ahaa wali picturekeedii horta way muuqataa marka dee dadka dad la nool baa jira isna woogaanu gurgura yahay dadkuna woogi waanu sababta adiis iyo dir dhaba iyo intaa horta u joogo culture-ka Soomaalida hadal ahaanteedii iyo dhaqan ahaanteedii oo male muuqaal ahaanteedii oo male taasi waa taa
arrinta uu dagaalada iyo waxa uu haddeerta kicinayo wuxuu yidhi ardal yahow sidaan kuu ajalay waadan ba ogeyn maxaad ubeetaysaa yaa kuugu imanaya somalilan 30 kun oo ciidana ee gobolka sool sheegan jirta waanu keenay 30 kun markay ku dhammaadeenna intaasoo tababar iyo ciidan iyo labadeenna seefadoo tasaawir noqota iyo maanta gurigiina ba'ay iyo wixii la shubayay wadaagsan wixiina way dhammaadeen tirada meesha ka fiigtay ka baxsatay dhowr guutay ahayd laba saddex guutay iyana markii dambe baliyo cumar iyo halkaa waa tii dee raggii watay ka fiigay ay ku dhammaadeen sababta keenaysaan waxaa weeye dee wax darrada markhaatigeediina wixii kale markii laga tago meydkoodu way qaadan kari waayeen xitaa bisha cas ama red crosska oo ay ahayd inay weydiistaan inay u soo qaado dadkii dhalay dadkana loo geeyo way tahli waayeen sababtay tahay in halkan lagaga qariyo ayaa barnaamijku ahaa dadka maxaabiista ah xidhxidhan si sharaf leh baa loola dhaqmaa markii saaqu soo galay Soomaaliya Hargeysa iyo Berbera iyo Burco dadkii maxaabiista ah ee Soomaaliyeed maxkamadda Fred Sumulin leeyahay qof baa odhanaya bilaa cadaalad muxuu idinku yeelay muxuu idinku sameeyay sidaa annagu kii wax nala yeelay dhibaato nagu sameeyay ee aan ognahay waanu gacanta ku haynaa waan cid wax u geysatay aysan jirin haddii nabad la helana dadkooday ka mid ahaanayaan haddii nabad la waayana halkaasay joogeen taana ismada garadkii maamulkii intoo way caddeeyeen waana wixii halka ka dhacay baana lagu ilaaway dhulbaanta ma ciil qaba waayo waxa uu halkan ka dhacay baa ku filan way ku faraxsanaayeen dadka dhiman eeg dagaalkan wuxuu ka bilaabmay maata iyo carruur iminkana ay isu soo abaabileen qabiil waa tan haddeer maraysa haamihii saaqoo dhan baanu dhex marrayay iminkana waa soconnaayey ka kacaay iyo waxa haddeer la wado dee waa wuxuu u maqnaa waxay haddeer dadka ka beddelaysaana ma jiro ta kicintana dee waad inoo wada kicisay ilaa iyo jigjiga ilaa iyo ceere gaabo ku darso waxaan malaynayaa haddii baharsha inaad muujisaan inay qabiil tahay waa wax loo baahan yahay waa wax ayna ninna ka dayrinayn nin daaroodii kama dayrinayo isaaq baa kula dagaalamaya marka haddii ay kuugu badiso sidaa dee waa soo socod siraadda idiinla sheegay waxaan ku noqonayaa xagga maxamed abubakar weystin isna muuse abubakar buu sheegtaa si gaara baryahan dambe isagoo dhulbahanto in general xalay wixii gabadha